labaatankii sano ee lasoo dhaafay faragelinta toban ee Itoobiya ku haysay Soomaaliya military ahaan iyo siyaasad ahaan waa isbedelaysay marba marxalad ayayna ku soo aadaysay laga soo bilaabo sanadkii 1996 xilligaas oo si rasmi ah ciidamo Itoobiyaan ah gudaha u soo galeen Soomaaliya kadib burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya. Itoobiya waxay u ahayd fursad weyn in Soomaaliya oo dawlad xoogan ahayd inay burburto si ay meesha uga baxdo awooddii Soomaaliya ku lahayd geeska Afrika. wixii ka dambeeyay 1991 waxaana bilowday dagaal sokeeye iyo hogaamiye kooxeedyo qabsaday gobollo iyo magaalooyin. markii ugu horeysay ee Itoobiya faragelin ciidan ku samaysay kadib burburkii dhexe ee Soomaaliya waxay ahayd sanadkii 1996 xilligaasoo Gedo ay soo galeen ciidamo Itoobiyaan ah waxaana Gedo ka jiray kacdoono uu hormuud u ahaa ururkii al-Ittixaad al-Islaamiyah oo xilligaas dhaqdhaqaaqyo ka waday Luuq iyo qaybo ka mid ah Gedo. Generaal Cumar Xaaji Masaale ayaa noqday ninkii ugu horeeyay oo ciidamo Itoobiyaan ah soo geliyay Soomaaliya kadib burburkii dawladdii dhexe. wixii ka dambeeyay 1996 Itoobiya waxay gobollada Soomaaliya ee xuduudda ku dhow ku lahayd dhaqdhaqaaqyo military oo joogto ah iyadoo marba ciidan soo gelin jirtay deegaanada Soomaaliya ee xuduudda dhaca. waxay bilowday inay hubayso hogaamiye kooxeedyo saaxiib la ahaa. sanadkii 1999 dagaalkii jabhadda RRA kaga saartay gobollada Baay iyo Bakool maamulkii Salbalaar ee uu hogaaminayay injineer Xuseen Ciidiid waxaa ka qayb qaatay ciidamo Itoobiyaan ah oo taageerayay jabhadda RRA ee uu hogaaminayay Korneel Maxamed Nuur Shaati Guduud. sanadkii 2000 oo tuulada Carta ee dalka Jabuuti lagu soo dhisay dawlad ku meel gaar ah ee madaxweyne loogu doortay Cabdiqaasin Salaad Xasan. Itoobiya lama dhacsanayn dhismaha dawladdaas curdunka ahayd ee Jabuuti lagu dhisay, waxaana markaas kadib bilowday in ay xiriir la samayso hogaamiye kooxeedyada koonfurta Soomaaliya gaar ahaan kuwii Muqdisho iyo deegaanada kale ka soo jeeday sida Muuse Suudi Yalaxow iyo Maxamed Cumar Xabeeb oo horaantii sanadkii 2001 la wareegay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. waxaa jirtay dhowr jeer ay Itoobiya hub iyo saanad military siisay hogaamiye kooxeedyadii ka soo horjeeday dawladdii Cabdiqaasim Salaad Xasan. 2004 dawladdii lagu soo doortay Embagati ee dalka Kenya waxaa madaxweyne loo doortay Cabdullaahi Yuusuf Axmed. madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf waxaa lagu tirinayay inuu saaxiib dhow la ahaa Itoobiya iyadoo la xasuusto in markii la doortay uu ka codsaday Midowga Afrika ciidamo gaarayo ilaa 20,000 oo nabad ilaaliyaal ah si ay dib ugu soo celiyaan kala dambeyntii hubkana looga dhigo ilaa 55,000 oo maleeshiyaad ah. bishii Maarso sanadkii 2005 baarlamaankii kumeel gaarka ah xilligaas si kumeel gaar ah ugu shaqeynayay magaalada Nairobi waxa uu yeeshay kulan aan caadi ahayn oo ujeedkiisu ahaa meelmarin ciidamo ka socda Midowga Afrika oo aanay ku jirin dalalka safka hore, waxaana ka dhashay buuq. codayntii oo qarsoodi ahayd 217 xildhibaan oo soo xaadirtay kulankaas waxaa diiday in ciidan safka hore la keeno 156 xildhibaan halka 55 kale ogolaatay. waxaa ka aamustay 6 mudane iyadoo wixii ka dambeeyay kulanka isku bedelay buuq iyo fowdo heer gacanta la iskula tago iyo kuraas la isla dhaco. waxaana xilligaas taariikhda u galay baarlamaankii kumeel gaarka ahaa in iyagoo aanay dalka dibaddiisa joogo inay isku gacan qaadeen. bishii Diseembar sanadkii 2006 markii ugu horeysay waxaa koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya soo galay ciidamo Itoobiyaan ahaa oo taageerayay dawladdii kumeel gaarka ee hogaaminayay
madaxweynihii hore Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf oo xilligaas xarun ku meel gaar u ahayd magaalada Baydhabo ee gobolka Baay. xilligaas dowladda waxay wajahaysay kacdoono uga imaanayay midowgii maxkamadaha islaamiga oo doonayay inay xukunka ka tuuraan dowladdii beesha caalamka aqoonsaneed. soo gelitaankii ciidamada Itoobiya kadib iyo dagaaladii maxkamadihii ku dhex maray Mindaynunay Iidaale ilaa duleedyada Muqdisho waxay sababtay in dowladdii kumeel gaarka ahayd in ay saldhigato madaxtooyada qaranka ee Villa Soomaaliya muddo 15 sano kadib burburkii dowladdii kacaanka. dhaqdhaqaaqyadii ay wadeen ciidamadii Itoobiya oo taageerayay ciidamada dowladdii kumeel gaarka waxay suuro geliyeen in dhammaan gobolladii koonfurta iyo bartamaha laga saaro midowgii maxkamadaha. wixii markaas ka dambeeyay maxkamadihii islaamiga ee laga itaal roonaaday qaarna hawdka galay kuwana dalalka deriska u cararay waxay la soo baxeen xeelad cusub oo dagaal jabhadayn ah ku dhufo oo ka dhaqaaq ah. waxaana bilaabatay kacdoon muqaawamo ah oo weeraro ku qaadayay saldhigyada ciidamada Itoobiya Muqdisho gudaheeda daafaheeda ilaa gobollada kale. dagaalkii muqaawamada lagula jiray ciidamada Itoobiya iyo tii dowladdii kumeel gaarka ahayd wuxuu sababay dhimasho, dhaawac, barakac iyo burbur hantiyadeed iyadoo bartamihii sanadkii 2007 looga dhawaaqay magaalada Asmara isbahaysi la magac baxay dib u xoreynta oo ay ku jireen maxkamadaha islaamiga ahaa ee laga saaray koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ee Sheekh Shariif hogaaminayay iyo garabkii xildhibaanada uu hogaaminayay Shariif Xasan Sheekh Aadan ee la baxay baarlamaanka xorta. wadahadallo qaramada midoobay garwadeen ka ahayd ee u dhaxeeyay dowladda federaalka iyo isbahaysiga la magac baxay dib u xoreynta ee Asmara ayaa suuro geliyay in la bilaabo dadaalo diblomaasiyadeed oo dalka looga saaro ciidamadii Itoobiyaanka iyadoo isbahaysigii Asmara qaybtii uu hogaaminayay Sheekh Shariif ay qaateen siyaasad ahaan in dowladda la hadlaan kadib iscasilaadii madaxweynihii dowladda kumeel gaarka ahayd Allaha u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf dhamaadkii sanadkii 2008. waxaa Jabuuti ka sii socday wadahadallada isbahaysiga Asmara garabkii uu Sheekh Shariif hogaaminayay inay ku biiraan dowladdii kumeel gaarka ahayd laguna heshiiyo dhismaha dowlad midnimo qaran. waxaana dhamaadkii bishii Janaayo sanadkii 2009 doorasho ka dhacday dalka Jabuuti oo ay ka qayb galeen isku darkii xildhibaanadii kumeel gaarka ah iyo xildhibaano ka yimid isbahaysigii dib u xoreynta garabkii Sheekh Shariif iyo Shariif Xasan ayaa waxa ay madaxweyne u doorteen Sheekh Shariif Sheekh Axmed. horaantii sanadkii 2009 ayay si rasmi ah u bilaabatay in ciidamada Itoobiya isaga baxaan Soomaaliya iyadoo la fulinayay wadahadaladii Jabuuti lagu soo dhisay dowlad midnimo qaran. waxaana 3 sano kadib Soomaaliya isaga baxay ciidamada Itoobiya iyadoo xilligaas wixii ka dambeeyay Itoobiya wajahaysay eedeymo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo ku aadan xasuuq ay geysteen. muddadii ay dalka joogeen ayaa waxa ay dowladdii u hogaaminayay ra'iisul wasaarihii hore Itoobiya Mele Zenawi ay isbeddello ku samaysay qaabkii ula falgeli jirtay waxayna qaateen faragelin dhinaca militariga ahaa in ay siyaasad ku bedelaan. waxaana urur goboleedka IGAD oo inta badan gaashaanka u heeso Itoobiya ayaa waxa uu xafiiskiisa la socodka arrimaha siyaasadda horaantii sanadkii 2010 Colonel Jibrazi Zibir Almazagi oo loo yaqaano General Gabra ayaa xafiiska ka noqday la taliye sare iyadoo General Gabra ahaa taliyihii hogaaminayay ciidamada Itoobiya ee soo galay Soomaaliya sanadkii 2006. xafiiska IGAD ee qaabilsan arrimaha siyaasadda Soomaaliya oo xilligaas saldhigiisu ahaa Jabuuti wuxuu doorar ka qaadanayay kulamada siyaasadeed ee heerka caalami ee looga hadlayay arrimaha Soomaaliya. shirarkaas waxaa barbar socday ololaha diblomaasiyadeed ee Itoobiya ka dhex samaysay beesha caalamka oo ahaa inay bedesho aragtida laga aaminsanaa wixii ka dambeeyay bixitaankii sanadkii 2009
ilaa horaantii sanadkii 2012. Itoobiya wax ciidan ah kuma aysan soo daabulin Soomaaliya, laakiin bishii Febraayo sanadkii 2012 ka hor inta aanu furmin shirkii London ee looga hadlayay arrimaha Soomaaliya ayaa ciidamada Itoobiya oo ka soo gudbay xuduudda waxay la wareegeen magaalada Baydhabo oo ahayd halkii ciidamada Itoobiya ka soo bilaabeen duulaankii sanadkii 2006. la wareegidii Baydhabo ee ciidamada Itoobiya iyo shirkii London 23 Febraayo sanadda 2012 ee looga hadlayay arrimaha Soomaaliya ay dowladda UK soo qabanqaabisay waxaa mar kale fursad u noqotay in Itoobiya isku muujiso in aan looga maarmin xasiloonida Soomaaliya iyadoo la dagaalanka Al-Shabaab oo xilligaas magaalooyin badan gacanta ku hayay. waxaana ra'iisul wasaarihii hore ee Itoobiya Meles Zenawi uu shirkii London ka hadlay uu soo jeediyay in ciidamada Itoobiya la wareegaan magaalooyinka xarumaha u ah gobolada ee dhanka xuduudda u dhow si marka ay u xoreeyaan ugu wareejiyaan ciidamada AMISOM. waxaa halkaasi ku dhan warbixintii taxanaha ahayd qaybtii koowaad ee aan uga hadlaynay faragelinta Itoobiya ee Soomaaliya sanadkii 1996 ilaa sanadka 2019 qaybtii koowaad. fadlan haddii aad nala socoto subscribe saar channelkeena si aad u hesho ama aad si degdeg ah ugu hesho taxanaha warbixintan qaybta labaad aanu ku eegi doono markaasna aan halkan ku soo gudbin doono